لا شك أن محمدًا خير الورى ريق الكرام ونخبة الأعيان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته برنامجكن waxaynu kaga hadlaynaa macnaha kor u qaadista macnaha rafaca iyo nazala soo degista marka la raaco fahamka quraanka kariimka ah iyo axaadiista rasuulka sallallahu alayhi wasallam sababta dadka qaar ugu haystaan in nabi ciise samada uu ku nool yahay waxay tahay macnaha ay ka fahmeen aayadda a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim bal rafa'ahu allahu ilayhi wa suuratu nisaa iyo aayadda kale ee ilaahay yiri a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim inni mutawaffika wa raafi'uka ilayya sababta labaad waa axaadiista rasuulkeena sallallahu alayhi wasallam laga wariyay inuu soo degi doono macnuhu waxa weeye hadduu soo degi doono marka hore waa inuu samada jiro sida ay muqaranaysaa ay muxuu ahaa ay u qaataan hase ahaatee waxa alle quraanka inoogu cadeeyay inuu geeriyooday nabi ciise oo samada aanu jirin aan daliilka quraanka iyo cadeemaha quraanka waxaanu kaga soo hadalnay barnaamijyadii hore marka haddii uu geeriyooday waa maxay marka macnaha rafaca in ilaahay uu kor u qaaday ama waa maxay macnaha axaadiista rasuulka sallallahu alayhi wasallam ee nazala inuu garanaysaa soo degi doono aan ku horeyno macnaha rafaca kor u qaadista macnaha kor u qaadistu marka alle subxaanahu wa tacaala laga hadlayo iyo adoon uu isagu abuuray waa maqaam waa dhawaansho alle dhaweysanayo adoonkaas alle ayaa kor u qaaday waa alle ayaa dhaweystay ma aha in qofka jirkiisa samada loo qaadayo waayo ilaahay meel walba waa joogaa waana inala joogaa waxaa ilaahay ku yidhi qur-aanka kariimka ah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله نور السماوات والأرض وسورة النور آيات 66 وحكى له إلهي قرآن كويري أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو حكيم عليم وسورة الزخرف وهي آيات 6 يعني إلهي ميل والبا waa jooga ilaahay
آياتك إلهي وحولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا المجادلة آيات ستيداد إلهي وحكو ليهي آياتها ينقول شيئا يعني مركز ستحتي أنا إذن كأفرة مركز شنتي أنا إذن كلحة يعني وإن نتشغى إلهي وحي آيات كلا إلهي يجري ولله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم إلهي وحولي دنك أوجه ستانبا يعني إلهي وإذن كتشرة marka nabi ciise xagga ilaahay ayaa loo kor yeelay xagga ilaahay ayaa kor loogu qaaday marka labada aayadood u fiirsato barafacahu allah ilayhi waxa weeye xaqiisa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa xagga ilaahay weeye looma qaadin samada looma qaadin taas macnaheedu waxa weeye alle ayaa dhaweystay waa kor qaadis maqaam iyo darajo ah waxa weeye kor qaadis karaamo ah qof nool oo dhar gashan oo kaba gashan alle uma tago ambiyada alloo dhamina waa marfuuc weeye waa inta alle eebe kor u qaadi weeye marka adoonka alle dhaweysto ayaa adoonkii noqonayaa mid kor loo qaaday in macnaha kor u qaadistu yahay alle ayaa dhaweystay ama maqaam ahaan kor u qaaday oo aanu ahayn alle ayaa jirkiisii qof ahaan samada u qaaday waxa u daliil ah macnaha ereyga rafaca oo ereyga kor u qaadista macnaha uu yahay ama laga fahmo aayado kale oo quraanka kamid ah iyo xadiiska rasuulka sallallahu alayhi wasallam macnahaas oo ah kor u qaadis maqaam iyo dhawaansho xagga alle ah subhanahu wa ta'ala إلهي القرآن كويري أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال وسورة النور وهي آيات 67 كل آية بقدري إن كور لو قعدوا لو نحو سمع عيسى لو ما فهموا إن قريها سمد الله قاضي وحلو فهما مقام يدوانشو حق الله مقام يدوانشو حق إيباء أدومها قريها كنول أي أل مقامهان كر قاضي وي ودوي سنية وحا آيات كري إلهي كويري أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا وسورة مريم وي آياتها كنتن إيو تطبع إيو كنتن إيو سديد نبي إدريس عليه السلام أيا إيب ليهي ميل سرع أيا نقيني كربان وقادمي sidoo kale waa kor qaadis maqaam iyo dhawaansho ah looma fahmo in nabi idriis eebe samada u qaaday isaga oo nool rasuulka calayhi salaatu wasalaam xadiis ku yiri waa sahih muslim iyo xadiiskanu kitaabul birra wasilla waxa rasuulku yiri sallallahu alayhi wasallam وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله
معناها جود حديث كحوي أدونك هر إلهي هوس سودجا بأي قرو قاضي وقرو قادس مقام يدوان شأه معها إن سمد قف الله قاضي وفرس أريد حديثك رفعه الله إسلا أريد قصة أروري آيات سورة النساء بل رفعه الله حديثك رسولك حليه إلا رفعه الله يعني قفك هو الصدق إلهي بكر قاضي آيات سورة النساء وحي إلهي لي بل رفعه الله ورفعه الله آيات إسلام وحوي واسكو أريوي معنى وحوي إلهي بكر وقاضي هذه مركة معناها حديثك أريد رفعه الله يهي كرو قادس مقام إيدوان شاء سيدو كله أيا معناها آيات بل رفعه الله إيه قرآنك كجرتا معناه يهي كرو قادس مقام إيدوان شاء مركة تكريسو دعاء لبس جويد أول حيصة واحد كنت عايزته ربي اغفر لي وارحمني واهدني وعافني واجبرني وارزقني وارفعني دعاء قف كسته او مسلم اهي waxa uu akhriya ama yiraahdaa ragcad walba labada sujuudood inta u dhaxaysa marka aad leedahay warfacni waxaad eebe aad ka baryaysaa in eebe kor ku qaado maqaam ahaan ama ku dhaweysto haddii macnuhu aanu sidan ahayn ma waxa maankaaga ku jirta yani marka leedahay rabbi warfacni eebe kor ii qaad ma waxa maankaaga ku jirta ilaahay oo samada ii qaad ma filayo yani macnaha warfacni marka aad tukanayso waxa weeye ilaahay maqaam ahaan darajo ahaan kor ii qaad macnaheedu waxa weeye ilaahayow i dhaweyso weeyi oo ii dambi dhaaf oo ducadayda aqbal ta kale ma jiro xadiis qura oo laga wariyey nabigeena sallallahu alayhi wasallam oo uu yiri nabi ciise samada ayaa loo qaaday حديث كلمة جرو ما أوران رسولك صلى الله عليه وسلم وحقف أهان نبي عيسى صلى الله عليه وسلم كوا كدو ذي سمدا أيو كنو ليهي هل وديو إني عطين كينان هل كان النبي صلى الله عليه وسلم وكويري أما حديثك لقوري رسولك صلى الله عليه وسلم ويري نبي عيسى samada ayaa loo qaaday ma keeni karaan sidee marka qof aan marka horeba samada qaban sidee qof aan markiisa horeba samada qabani uu uga iman karaa meel aanu jirin nabi ciise samada ma jiro kuma noola sidee marka loo oran karaa uu ka soo degaya waxa marka quraanka iyo axaadiista rasuulka sala allahu calayhi wasalam ka sugan oo aynu ka fahamnay in macnaha rafaca kor qaadistu uu yahay maqaam iyo dhawaansho addoonka ilaahay u dhaweysanayo yani marka ilaahay loo nusbeenayo kor qaadis ee addoon uu isagu abuuray alle abuuray laga hadlayo sida quraanka iyo axaadiista rasuulka sallallahu calayhi wasalam aynu ka fahamnay waxa weeye waa kor qaadis maqaam ah waa kor qaadis uu ilaahay dhaweysanaya adoonka ah sidaas awgeed jamaacada axmadiya waxay aaminsan yihiin macnaha ka sugan kitaabka quraanka ah iyo axaadiista rasuulkeena sallallahu calayhi wasallam waxaan aaminsanahay in macnaha kor qaadista ee aayadda bal rafacahu allahu ilayhi iyo aayadda kale innii mutawaffiika wa raaficuka ilaya
in macnaha kor qaadistaas labada aayadood alle u jeedo ama macnahooda uu yahay inay tahay kor qaadis maqaam ahaan ah kor qaadis darajo ahaan ah kor qaadis qofka in ilaahay uu dhaweystay nabi ciise inoo sheegaysa ambiyadoo dhamina aan marka hore idiin sheegay waa marfuuc waa inta alla kor u qaaday weeye magacyada ilaahay asmaa ulxusna waxaa ka mid ah alkhaafidu alraaficu in alla yahay ka hoos wax u dhiga in alla yahay alraaficu ka kor wax u qaada in alla yahay ka hoos u dhiga addoomihiisa ka uu doono korna u qaada addoomihiisa ka uu doono ee raalli ka noqdo sida alla yidhi nabi idriis acuudu billahi min ashaytaan arajiim واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا وسورة مريم وي آيات كنت إن تطبع يكنت يستيد عندنا عقلك إيجان وصومالي أهان هذه مثل قف في هذا بريتو أيام دولية لو ما قاعد تقف إنه شبر نقول يا أوبالي يلا يعني بريتو أيام دولية waxaa weeye waxaa loo fahmaa in uu dhoofayo inuu ama diyaarad raacayo haddaba marka alle leeyahay nabi ciise xaggayga ayaan kor ugu qaaday caqliga alle ku siiyey ku faham in alle qof dhar iyo kabagashan aanu qaadin in qof nool oo dharkiisii iyo kabigiisii gashani inaanu alle u tagin caqliga ilaahay ku siiyey ku faham macnuhu uu yahay waxaan ugu celcelinayaa waxaa weeye si loo fahmo macnaha kor qaadistu marka ilaahay leeyahay uuna leeyahay addoon baan kor u qaaday waxaa weeye waa maqaam ahaan weeye waa darajo ahaan alle ayaa dhaweystay addoonkaas weeye waxaan rajaynayaa in ay hadda idin caddaatay in nabi ciise aanu samada ku noolayn inaan samada loo qaadin waxaan hadda u gelaynaa macnaha soo degista rasuulka sala allahu calayhi wasalam waata laga wariyey axaadiis badan baana jirto oo rasuulka laga wariyey inuu soo degi doono waa maxay markaa macnaha soo degistu waa maxay marka hore waxaan idiin sheegaya axaadiista rasuulka laga wariyey rasuulku wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam waxaa weeye muslim kitaabu liimaan kayfa antum idaa nazala ibnu maryama fiikum wa imaamukum minkum xadiis kale oo isna muxuu ahaa saxiix muslim ah rasuulku wuxuu yidhi layanzilanna ibnu maryama xakaman cadlan fayaksiranna saliiba waxaa idinku soo degi doonaa nabi ciise isagoo caadil xaakim caadil ay idiin noqon doona waxaan burin doonaa jajabin doonaa karooska axaadiis kale ina jirto oo rasuulka laga wariyey inuu karooska jajabin doono inuu doofaarka layn doono doofaarka yani xayawaanka ama inuu dhaqan doofaarka uu muxuu ahaa uu la dagaalamin doono inuu dajaal dili doono xadiis kale waxa uu rasuulku yiri sala allahu calayhi wasalam ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا حديث كان محوي وبخاري marka xadiisyo badan baa jira oo rasuulka laga wariyey in nabi ciise uu soo degi doono marka xadiistan waxay inoo sheegayaan in nabi ciise calayhi salaam uu soo degi doono hase ahaatee waxaan ka soo hadalnay in qur-aanku inoo sheegay inuu geeriyooday oo dhintay qof dhintayna aanu soo noqon waxa kale oo aan
kasoo hadalay inaan samada loo qaadin macnaha kor qaadistuna uu yahay maqaam ahaan iyo darajo ahaan in ala dhaweystay waa maxay marka macnaha axaadiista rasuulka laga wariyay sallallahu alayhi wasallam inuu soo degi doono haddii uu dhintay haddii aan soo noqon doonin haddii samada aan loo qaadin markiisa horeba marka macnaha axaadiisna rasuulka alayhi salaatu wasalaam laga wariyay inuu soo degi doono macnahoodu muxuu yahay waxaad kaloo aad ogaataan in quraanka iyo axaadiistu aanay iskhilaafi karin marka u noqono erebixinta quraanka sida macnaha nazala quraanku aayado kale ugu soo arooray macnaha uu leeyahay waayo quraanku isaga ayaa isfasira waxaa ilaahay yidhi subxaanahu wa tacaala acuudu billahi min ashaytaani rajiim waanzalna alxadiida fiihi ba'sun shadiidun wamanaaficu linnaas waa suurat alxadiid aayadda 26aad ilaahay waxaan soo dejinay ayuu leeyahay xadiidka birta ma aha in birtu samada ay ka soo degto ma aha macnaheedu waxa weeye waanu ahaysiin يعني إلهي وحولي وأنزلنا الحديد ونسود جنة برتا لكن معناها ينكفها من وحوي إذا برتو سماك ما صور عدائه وحوي وان أحيسين برتا وان أحيسين وي آيات أقرأ بأن غفلا إن صدقست النبي عيسى تحي وان أحيسين وإيمان واي برتو سماك ما صدقته هذا إلهي وحوليه وأنزلنا الحديد وحن سود الجنة برتا مركز سيدان أو كله أيها سود دقيس النبي عيسى أنا أوحين السماء أيوك سود دقية حديث عن يوسف أخرير السوق عليه الصلاة صلى الله عليه وسلم وسود دقية لكن سود دقيسته ما هستمر أيوك سود دقية بحوي ودين إيمان دون أوبي آيات إلهي وحوري وأنزل لكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنزل لكم من الأنعام الثمانية وأنزل لكم من الأنعام 8 أزواج وسورة الزمر وهي آيات تطبعات إلهي وحوري وحن سود الجن حولها لو ما فهموا حوله إني كسود دجان صمده وحلو فهمه وانو أحيسين وانو دين أبورني يا لو فهمه waxa ma yeeran jira xoolaha la dhaqdo baa inoogu anfac badan sidaas awgeed baa loo yiri waanu soo dejinay ancaamka xoolaha ama xoolaha la dhaqdo waxay muujinaysaa muhiimadda ay ka leeyihiin ugaadha kale waxa kaloo Allah subhanahu wa ta'ala uu quraanka inoogu sheegay أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنه سود الشيء هو درك إنه كشنهاي إلهي وحوري يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون وحوي سورة الأعراف وحوليه إلهي waxaan soo dejinay buu leeyahay huga darkaynu gashanahay waan ognay huga aan samada aanu ka iman ilaahay isagoo ka hadlaya muxuu ahaa rasuulkeena sallallahu alayhi wa sallam wuxuu yiri a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور سورة الطلاق آيات 18 إلى 20 إلهي الرسول محمد صلى الله عليه وسلم أيوليه ونسود الجنة
marka soo degistu ma aha sida quraanka aynu ka fahmayno ilaahay wuxuu leeyahay birtan soo dejin xoolahan soo dejin dharkan soo dejin nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam soo dejin marka soo dejintu macnaheedu ma aha inuu samada ka imanayo waanu ahaysiin weeye wuu iman weeye aan dhinaca kale ka eegno Soomaali ahaan midalan marka reer meel soo dego waxa la yiraahdaa halka reer baa soo degay reer kale soo degay looma fahmo inuu samada ka yimi waxa weeye reer baa soo degay reer baa yimi weeye hebel baa soo degay ma aha inuu samada ka imanaya ma aha waxa weeye waa yimi weeye sidaas awgeed ayaa soo degista nabi ciise aanay u ahayn samada ayuu ka soo degayaa sida quraanka iyo xadiista aynu ka fahmnay macnaha ereyga nazala soo degista ay u tahay wuu iman rasuulkeena sallallahu alayhi wasallam uu ereygan uu isticmaalay nazala in nabi ciise soo degi doono waxa weeye waa muhiimadda uu leeyahay nabi ciise aad ayuu ay u weyn tahay muhiimadda uu leeyahay in nabi ciise ummadda nabi maxamed u yimaado waayo waa ka dijaadilaya waa ka koroska jijibinaya waa ka dhaqan doofaarka la dagaalamaya waa ka adduunka oo dhan islaamka muxuu ahaa gaarsiinaya waa ka muslimiinta midaynaya aayadda suurta saf ee ilaahay uu yiri a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim liyudhhirahu ala ad-diin kulli culimadu waxay isku waafaqsan tahay in waqtigaasi zamankaas uu yahay marka nabi ciise uu yimaado marka sidaas awgeed baa rasuulku yiri sallallahu alayhi wasallam wuu soo degaya haddaan soo koobno in marka fahamka quraanka iyo xadiista rasuulkeena sallallahu alayhi wasallam la raaco in macnaha rafaca kor u qaadistu aanu ahayn in nabi ciise samada loo qaaday ee uu yahay kor u qaadis maqaam darajo iyo dhawaansho ah in alla dhaweystay weeye macnuhu in meelna aan quraanka la inoogu sheegin in samada loo qaaday in aanu jirin xadiis qura oo rasuulka sallallahu alayhi wasallam laga wariyay oo uu yiri nabi ciise samada ayaa loo qaaday in macnaha axaadiista laga wariyay rasuulka sallallahu alayhi wasallam in nabi ciise uu soo degi doono yihiin wuu iman doonaa aanay ahayn samada ayuu ka soo degi doonaa marka sida axaadiista iyo quraanka inooga cad waxa weeye kor u qaadistu ma aha in jirkiisa samada loo qaaday ma aha waa kor u qaadis maqaam iyo dhawaansho alla dhaweystay soo degistuna ma aha inuu samada ka soo degayo waayo ilaahay wuxuu leeyahay birtaan soo dejinay xoolahan soo dejinay dharkaan idin soo dejinay rasuulkeena sallallahu alayhi wasallam baa ilaahay leeyahay waan soo dejinay sidoo kale ayaa rasuulku alayhi salaatu wasalaam xadiiska inuu yiri waxa soo degi doona nabi ciise ana waa idin iman doona weeyi sida xadiiska rasuulku inoogu sheegayna ka soo degaya waxa weeye waa mahdiga يعني مهديك أيام مكان نبي عيسى وهذا رسولك صلى الله عليه وسلم يري للمهدي إلى عيسى يعني مهدي مجرو عن عيسى أحين مركا سياس أيام عنها كورقادستا iyo soo degistu uu ku cad yahay in korqaadistuna ay tahay dhawaansho ilaahay u dhaweysanayo soo degistuna ay tahay inuu iman doono wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh يا رب صل على نبيك دائما في هذه
هذه الدنيا وبعث ثاني.